الشيء معروف تاس ميلا قارك حتى الصوفية ده شيء سلقلين سكرنا في قوة كلام مرك دعوة كلا صوعان حتى ما موقته دعوة إخوان المسلمين هي دعوة الاعتصام في هذا البلد وكلا صوعان مع عامة ما أنت هدي له ويديه ما كلا سوعي كريان لكن هدي له ويديه سلفيين يكوا كلا عوام الناس ويكلا قرارين دعوة كل حكي تتاس من ميدانو وحي سكدي جاين ونتعاون فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. سؤال كلام قوتها يا وحي هاي إذا كنتم سلفيين حقا فمن سلفكم في إنشاء هذه الأحزاب لأن السلفي الحق لا يتبنى شيئا ليس له فيه إمام كما قال الإمام أحمد لابنه عبد الله إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. حتى لو من عسى أبا أرنتن جماعات كقرميتي قرنية أفريقيا طماذ هجرية أرن مركز صاحبة كسو قرنوي أرنت سلف صدح طبعا قرني وزيادة الله لا خير كما كان نقوي لي صحابتي يتابع تابعينتي أئمتي مركز سنة واوينا وقتية المسلمين تطلق قالينا تطارك غير كيما مركز أي بابيين السيدة بدن أي أولي إيمان ويدي ما أنت ضدك السيدة بدن لو غرام رئيسنا يا محيط هاي بدعادة نوع عاصية هي محيط ما أنت واحد نورن كراي اتحاد وحي مريان بريقا هلك إخوان المسلمين يمرين بريقا منك اتحاد كنك مسبل كي إخوانك ولا يامج ولنك سنة اللي كنتم من يقبولك ما أنت نسبال كل حيوة وعاد ما مثال لك قرك حيرة ولا لا يامج وما قاقابيا ما أنت حالك ودكتين arrinkaas arrin cad buu ahaa nimanka ictisaamka ahi salafiyiinta ama caqiidada salafka ay sheeganayaan ma aha caqiidatu salaf waa caqiidada sayyid qutb iyo maxamed qutb iyo maxamed salul saynul abidin iyo ragga la midka ah nimankaasina caqiidadooda waa caqiida caan ah waa caqiida takfiir waa munadiriinta takfiirka oo dhan iyaga ayay ka qaataan waxaan leeyahay war haddaa salafiyiintihiin oo idinka dhab tahay bal yaa salaf idinku ah oo idinka horreeyey ood kaga dayanasaan jamaacaadkanaad samaynasaan waayo qofka salafigii ma tabaniyo oo madhab iyo dariiqo ma qaato aanu salafu lahayn iyo cidu kaga daydo abadan yaa idinka horreeyey laakiin su-aasha isweydiinta le waxay ahayd ama dooda ugu badan oo hadda aan anigu hadalkayga aan daba socda waxa weeye nimankii dakaatirada ahaa ee doctor Faisal iyo raggiisii iyo Xasan Ali iyo asxaabtooda arrinkan isaga ay ma ka qarsooni haddii aanu ka qarsoonayn maxay ka aaminsan su-aasha waxa jawaabteeda bixinaya Faisal Maxamed Ali doctor Faisal Maxamed Ali afkiisa ayuu wuxuu ka leeyahay oo ku cadaynaya dooda uu la galay ama niqaashka asaga ee dhex maray ninka odayga ee Maxamed عبد داوود اللي يراده هرجيسا ku dhex martay waqti aan saa u dheerayno saa u sifogay afkiisa ayuu wuxuu ku cadeynaya nimanka ikhwaan muslimiinka inay labaynayihiin bannaa'iin Hasan al-Banna iyo raggiisa ku taafursan oo la fikir iyo qutbiyiin sacad wuxuu oranay qutbiyiintu waa takfiiriyiin kutubtooda takfiir baa ka buuxa wuxuu markaa oranaya wax farqiya uma dhaxeeyo qutbiyiinta iyo as-saadicuun bil haqq nimanka la baxrintiis waayo deew ayaga waa ardadoodii way إخوان المسلمين كل ما قيبوت بيهاين قيب قطبيين ليرادين قيب بنائيين ليرادوا بنائيين تو حسن البنا إيو حسن الهضيبي وكدم بيه لما كاس عقيدته إلى حد بعيد تكفير ويكمر نيت لكن قطبيين تنما كلياده كتبت شيء وقيم كيلو شيء أو لا قارنا ونفافين شرني يجا تكفير كبوحة سيد قطب كتبتي ستكفير بكبوحة تكفير المجتمعات عدالة اجتماعية هديت هاي ضلالك هديت هاي marka janaah qudbiga hadaynu eegno iyo saadicuuna bil haqq wuxuu dhaxeeyaa ma jiraan xagga takfiirka yani wuxuu ma dhaxeeyaa fara badan oo u dhaxeeyo jawhariya ma garanayo wala yaaba tandiim ahaan inay kala duwan Faisal marka i'tisaamkuna waa sidoo kale ayaga afkooda ka cadeysanay waa saaxibul bayt adra bima fi ninka guriga iska leh asaga xoog ogaalsan waxa dhexiyaan waxa kale la yiraahdaa ahlu makkah adra bi shicaabiha reemak ayaga wadooyinkooda iyo golaheeda iyo meelaheeda iyo وحق وقالسنو يقانو ما أنت إنك هالله يورك شيء وورا أنه هري وهيني لكن أذيك يا رجال وأدونيسن إن تلبيسسان وهذا قد كتان لمن كان فرق النور حيا فروق إسك بسيطة وروح الله نظاميه درس الله نظاميه وذات كمرك 10 كودقيو درس مد إعلامية مد كرسي وصول دقيو waxa laga yaabaa inuu ku yiraahdo waxaan ayaa sheekh Hebelo jamaaca Hiblaayo amaanay bari waayahay imisa jeer buu inta dabadeed oo ka hadlo oo ka digay taa maxaad u arki weyd waayo masalada kaba soo qaad inuu jamaacada amaanay sheekhaas horeysiyo dambaysaba masaa'ishii kale waa weyneed meeday aqaa'idkiyo manaahijta ku saabsanayd iyo qiimeynta dacwaadka ee sheekhaasi uu ka hadlay maxaad ugu waafaqi weyd aad uga dayan weyd arrinkaasi waa arrin muhiim ah oo ay tahay talabatul cilmigu inay ku baraarugaan
laakiin innaka waaqiceenna aynu ku noolahay maadaama dadkan jamaacaadku ay dadka ku tarbiyeyeen inaan laba wada hadalo indhaha la kala laabto dee wuxuu noqday radigii wax lala yaabo oo laga naxo laakiin waa in la ogaado ximaayada iyo ilaalinta diinta iyo xiraasadeedu inay waxaa kaloo ku tusinay nimanku caqiidadoodii takfiirka ahayd inaanay ka guurin ictisaam ee awal ay ka qaateen sayid qutb iyo maxamed qutb iyo qutbiyiinta iyo suruuriyiinta ay awalna kasoo qaateen inaanay ka tanaasulin hadda manhajka u qoran hagabay ka keenay sayid imaam bay ka keeneen iyo raggiisa meesha ugu qoran tahay farwa weyn sayid alimaam oo munadirka takfiiriyiinta iyo tafjiiriyiinta iyo qaacidada ah ila marmarba waxa weeyaan jamaacada meesha joogin waxa weeye la keenaya oo lagu oranayaa jamaacadii hadday wax maanicaba ama wax waxa weeye khalalaba ka madhnaato horta waa teetaadii sheegaysaa ka madhan hawadaynu xukunaa mise waaqacaynu ka hadlayno waxa weeye markaynu waaqaca ka hadlayno jamaacadka maanta dacwada u nisbo sheeganaya ee qaabkan waxa weeye xisbiyada maqiitada ah ee waxa weeye sharciga la khilaafsan wax badan oo kamida ku khilaafsan ku dhaqmaya shaki ma laha dariiqa ay marayaan inaanu dariiq saxan ahayn shaki ma laha